ma og tahay cagaarshowga inuu qof kasta ku dhici karo meel kasta uu joogo. waa barnaamij aanu ugu talagalnay in aanu ku kordhino aqoonta dadkayaga ee ku aadan cudurka cagaarshowga. cudurkan loo yaqaano cagaarshowga ama viral hepatitis waa mid ka mid ah cudurrada faafa ee khatarta ah ee dunida maanta ka jira. hay-adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ee loo yaqaano WHO waxay u aqoonsatay 28 Juulaay ee sanad kasta in loo aqoonsado maalintaasi maalintii cudurka cagaarshowga. waddankan aynu ku noolahay ee Mareykankana bisha May ee aynu hadda ku jirno ayaaba loogu magac daray bishii iswacyigelinta isxusuusinta dhibaatada uu geysto cudurka loo yaqaano viral hepatitis ee cagaarshowga. dadkayana dhibaatada tan ee cudurka uu caalamka oo dhan ka hayo waxay ku jiraan muhiimad gaara buu inoo leeyahay haddaynu nahay Soomaali. marka haddaynu fiirino cumuum ahaan caalamka baahsanaanta cudurkan global hepatitis-ka sida uu ka yahay waxaa warbixin naga siinaya Dr. Steve Wersman oo hay-adda caalamka u qaabilsan cudurkan hepatitis-ka. waa kan Dr. Steve oo warbixinta ina siiya. Hepatitis is one of the most common infectious diseases, and it causes a huge burden of disease. We're talking about 500 million or 500 million people that are infected with this disease, and most of those people have no idea that they're infected. Viral hepatitis infects people that are rich, that are poor, regardless of their ethnic affiliation or their religious affiliation. It's really something that is truly global. Each year, nearly 1 million deaths are attributed to infections with viral hepatitis. Worldwide, hepatitis viruses B and C are the leading cause of liver cancer, accounting for more than 75% of cases. Hepatitis A and E viruses are transmitted by food and water and continue to cause outbreaks around the world. marka warbixinta ayna siiyeen madaxdii ugu sareysay caafimaadka dunida WHO iyo qaridada viral hepatitis-ka aynu aragnay waxay labaduba inoo xaqiijinayaan muhiimadda gaarka ah ee uu inoo leeyahay cudurkan. waayo waxa maabka ka muuqday in tiro ka badan 8% qof ay cudurka hepatitis B-ga ay qabaan, halka 3% lagu sheegay inay qabeen hepatitis C. B iyo C waa labada nooc ee hepatitis-ka ugu khatarsan ee dhibaatada u geysta beerka. marka bal adba qiyaas 10% oo 10 milyan ee Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda ku soo maqan ba lagu sheegay 1 milyan bay noqonaysaa tirada qabta cudurkan. ilaahay naga badbaadiyay 10% baa lagu sheegay marka in ay qabi karaan cudurka qaybtiisa hepatitis B-ga ama hepatitis C-ga marka la fiiriyo daatada ka muuqata baahsanaanta cudurka ee caalamka loo sameeyay. sida magacaba laga dhansanayo cagaarshow waxaa la moodaa inuu yahay cudur sahlan oo indhuhu ku cagaaranayaan ama yellow ku noqonayaan dabadeedna laga koro. laakiin se runt ahaantii qaybta B iyo C arintu taa ma aha. imise qof baanu maqalnay oo cagaarshow baa ku dhacay la leeyahay lama koobi karo. imisaynu maqalnay oo la leeyahay waa laga gubay hebel cagaarshow oo daawo dhaqameed baa loo isticmaalay, ama imisaynu maqalnay oo la leeyahay hebel wuxuu u bukaa beerka ama hebel beerka ayuu u dhintay cudur kaga dhacay darteed. marka cudurkan viral hepatitis-ka ama cagaarshowga waxa uu ku yahay cudur dhibaato badan ku haya dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan. taana waxaa cadaynaya cilmi baarisyo la sameeyay bariyaha kan iyo dhacdooyin badan oo ka dhacay cisbitaalada Mareykanka. tusaale ahaan waxaa dhacday gabar daayar oo 32 sano jirta oo u dhimatay beerka kadib markii la doonay in beerka loo bedelo, dabadeedna gabadhii iyo reerkii iyo ummadii dhan inta ay xisaabtamayeen ay dhacday in gabadhaasi ay u dhimato beerkii. Dr. Cabdirashiid Maxamed Shire oo ah dhakhtar aqoon-yahan cilmi baare jooga Mayo Clinic cilmi baaris uu waday wuxuu ogaaday in
dad tiro badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka Minnesota in uuba ku dhacay beerkooda carcinoma ama kansarka loo yaqaan hepatocellular carcinoma oo ay la xiriirto haddana cudurkii hadda aynu ka hadlaynay ee viral hepatitis C marka waxaad ogaataan cudurkan jiritaankiisa iyo dhibaatada uu ku hayo ummadeena baaritaan baa loo baahan yahay qof kasta inuu sameeyo maadaama dhamaantayo aynu qabi karno cudurkan haddaynu isbaarno waxaa laga yaabaa inaynu dawo aynu helno haddii aad u baahantahay akhbaar intaa ka badanna igala soo xiriir somalihealth@gmail.com wixii akhbaarana Dr. Cabdirashiid iyo Dr. Maxamed Xasan oo jooga Minnesota ayaad ka heli karaysaa wixii ku saabsan beerka iyo dhibaatada Soomaalida kala haysta maca salaama